haddii aad ku dhiban tahay ku dhawaaqidda erayada Ingiriiska maanta waxaan ku bilaabi doonaa koorso dhameystiran oo aad ka baran doontid sida saxda ah ee loogu dhawaaqo erayada luqadda Ingiriiska. Halkan kore waxaa ku qoran pronunciation. Pronunciation waa dhawaqa. Lesson 1 casharka koowaad. Lesson waa cashar. Pronunciation. Pronunciation waa dhawaqa. Dhawaqa koowaad oo aan maanta qaadanayno waxaa loo yaqaanaa a sound. A sound waa dhawaqa a. Halkan waxaa ku qoran part 1. Part 1 waa qaybta koowaad. Casharkan wuxuu leeyahay laba qaybood. Maanta waxaan qaadanaynaa qaybtiisa koowaad. Kan waxaad ugu dhawaaqaysaa sida a. Xarafka waa e laakiin dhawaqa waa a. Haddaba kan wuxuu noqonayaa a, ba, ka, hadhihin a ama sa, waxaa leedahay ka. Dha, kan waa dha, ma ahan da, waa dha. Kan waa fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, pa. Pa ayaa leedahay. Pidan waa shidaysaa. Waxaa leedahay pa. Hadhihin ba. Kan waa ra. Sa. Ta. Va. Wa. Ya. Za. Qaybtan hoose waxaa ku qoran read a words. Read waa aqri. A words erayada oo ay ku jirto a. Words waa erayo. Erayga koowaad waa bag.